الله الرحمن الرحيم maanta oo khamiisa 17 bisha June 2022 shirkii golaha wasiirada maanta waxa furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha ugu horeyn waxa uu warbixin kooban ka siiyay golaha wasiirada arrimaha doorashooyinka dalka iyo hirgelinteeda howlaha socda waxa ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in dhammaan dawlad goboleedyadu ay soo direen iyo gobolka Banaadir iyo Somaliland gudiyadii doorashada dhammaantoodna ay diyaar yihiin sida ugu dhaqsaha badanna xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu soo saari doono liiska kama dambaysta ee gudiyadaas oo dhan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyay in doorashadaas ay noqon doonto mid furan warbaahintu ay goobjoog ka tahay xoogna u saari doono sidii ay doorashadaas u noqon lahayd mid dhammaan dadka Soomaaliyeed u horseeda doorashada furan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyay oo kale in qoondada haweenku ay ka go'an tahay isla markaana ahmiyad uu siinayo sidii loo sugi lahaana uu maaragtay xoogga saari doono inta kadib ra'iisul wasaaruhu waxa uu aaday kulamo gooni ah oo isaga uu lahaa muhiim u ahaa waxaana shirka sii waday oo shir gudoominayay ra'iisul wasaar ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar waxa ugu horeyn warbixin laga dhageystay wasiirada amniga iyo difaaca kuwaasoo xaaladaha dalka iyo amnigiisa ka hadlayay su'aalana la weydiiyay sidoo kale waxa warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo la xiriiray arrimaha gurmadka iyo abaaraha maaragtay howlihii u dambeeyay ay qabanayeen ugu dambeyntiina wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu golaha wasiirada u soo bandhigay habraac shaqasiinta xoogstada Soomaaliyeed ee dibadda waxaana dood iyo maaragtay falaqeyn kadib golaha wasiiradu ay u qaadeen cod aqlabiyada ayaana lagu ansixiyay habraacaas